أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم maanta bishu waxa weeyaan 13 bishii lixaad sanadii 2021 halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan Soomaali weyn meel kasta adduunyada kaga nool yihiin gaar ahaan waxaan sii salaamayaa Soomaalida ogaanaya gumeysiga madowga Itoobiya ku hoos jirta salaantan islaamka xaqa kadib codkaygan maanta waxaan dhihi karaa waa cod gaar ah fariin si gaar ah aan ula hadlayo waalidiinta Soomaalida meel kasta adduunyada kaga nool yihiin markaan saaleeyahay waxaan ka wadaa aniga ayaa waxaan ka mid ahay waalidiinta Soomaaliyeed maanta ifkan ku nool sida awgeed waxaan ina saaran waalidiinteena waajibaad inaga saaran dhammaan bulshada Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed haddii aan u qaybiyo afartan soo socota ayaan aan dhihi karaa bulshada Soomaaliyeed baa u qaybsami karta waxay tahay curiye dhaqaale oo Soomaali ah curiye cilmi curiye xornimo doon iyo curiye intaaba lid ku ah marka curiyaha cilmigiiba waxaan u qaybinaynaa iyo curiye dhaqaale macnaheedu curiye dhaqaale curiye cilmi curiye xornimo doon iyo curiye intaba ka soo horjeeda sida awgeed bulshadu saddex bay noqonaysaa caruur dhalinyaro iyo waayeel waxaan soo jeedinaynaa marka koonkan aan ku noolahay waxaa daruuri ah oo lagama maarmaan laba shay baa muhiima shay waa shay aad rabtid shayna waad u baahan tahay kaba soo qaada hadda biyaha waa baahi laakiin inaad lacag badan iyo maal heshid waa rabitaan waxaan rabnaa marka in la barto oo cilmi la barto oo cilmi culimada curiyaasha cilmi ee laba ah midna adduunyada koonkeeda cilmiyada kala duwan sida beeraha dhakhtarnimada iyo mashaariicda sida loo horumariyo iyo dawlad wanaag iyo sida loo dhiso sida masiibooyinka looga hortagiyo cilmiga la soo barto ee cilmiga adduunka ah ee aqoonyahan loo yaqaano iyo culimada diinta oo iskaashaday iyo waalidiintu waa inay ajandahan aan hadda soo socdo in ay isku dayaan waajibna ay tahay in laga hortago waxaan saa u leeyahay waxaa jira 20 sano u dambeysay adduunyadu waxay isku samaysay xagga isgaarsiinta isbedel aad u sareeya waxaan dhihi karaa boqoley wax la yiraahdo markii percentage markii wax lagu xisaabinayo boqolkiiba 2000 ayay isgaarsiintu adduunyadu ay kor markii lala tartansiiyo beesha adduunyada optionada kala duwan ee horumarka sameeyay ama dhinaca beeraha laga sameeyo ama dhinaca caafimaadka laga sameeyo horumarka ay isgaarsiintu sameysay waxaan dhihi karaa shahaadadii ugu sareysay ee abaalmarin qaadan lahayd shayga horumar sameeyay booskiisa ka dhaqaaqay waa isgaarsiin sababta waxaan ku soo koobaynaa maanta inaan la imaado tala bixin iyo aragti aan u madax banaanahay oo hiila oo isgaarsiintu siisay oo internetyada aan ka helay baan aniga laftigayga makhraati ah ayaa codkayga maanta idinku soo gudbinaya fikirkayga saliimka ah ee bulshadayda u soo gudbinayo ma raba inaan marka ku dheeraado codkayga waxaan rabaa inaan fursadaydan aan kaga faa'iideysto maanta waxaa lagama maarmaan ah oo aan dareensanahay inaan kaalinta culimadu ay ku leedahay inay isgaarsiinta uga faa'iideeyaan waxaan dhihi karaa ama ha noqoto barnaamijyo diini ah ama ha noqoto tafsiir quraan ama ha noqoto axaadiis ama ha noqoto bara bulsho oo barnaamijyada diinta ay ka soo gudbinayaan
intii tabartooda heed awoodooda yahay culimadu way ka soo baxayaan wayna qaadanayaan isla mar ahaanta arrimaha bulshada waxa laga maarmaana marka waalidiinta Soomaaliyeed meel kasto adduunka kaga nool yihiin inay ka qayb qaataan baraha bulshada dhibaatooyinka iyo masiibooyinka uu ka socdo sida awgeed waxaan dhihi karaa baarlamaanka shayaadilul insi iyo shayaadilul jinni labaduba waxay ku dhaarteen adduunka intay ku nool yihiin inay la dagaalamaan dhammaan wixii khayr ku socda ilaa ay fagaaraha waaritaanka laga aadahay maadaama marka labada baarlamaan ay ku dhaarteen waxaan qabaa waxaa jira isgaarsiintan isbedelka ay sameysay horumarkay sameyso anu waxaan xusuustaa sanadadii 1995 xilli aan ku noolaa ariga Kenya on program siyaasi oo political refugee taasina uu gumaysiga madowga Ethiopia TPLF ay gumaysiga maanta ugu dambeeyay BBA xitaa laftigeeda aan rajay ka qabinba inaan wadankii aan ku dhashay aan ku soo noqdo aan political refugee oo qaay oo aan ka halgamay dalka Kenya sagaashameeyadii 1995 waxaan xusuustaa xilli aan rabnay inaan xiriir la yeelano waalidiintanadii wadankii aanu kaga nimid isgaarsiintu waxay ahayd raadiyahan rakaylka la yiraahdo ayaa lagu xiriirin jiray sida awgeed waxaa shacabka ku adkayd habka loo isticmaalayo raadiyaha rakaylka ah macna raadiyaha rakaal waxa leedahay waa raadiyaha rakaalaho barta baa la dhigayaa wuxuu ku shaqeeyaa numbers waa raadiye fiilooyin ma laha qalabkan casriga digitalka ee electronic ee isgaarsiinta ama jiro internet ma aha waa raadiye kale lala xiriirayo isla marahantaana hab loogu hadlo oo qof ku takhasusay isgaarsiinta iyo raadiyaha mooye uusan ku xiriiri karin marka waxaan u xusahayaa isbedelkii 20 sano ee ka dambeysay ama aan dhowr 20 sano dhehe isgaarsiintu maanta waxay maraysaa in qof walba uu awood u leeyahay wadamada xorta ah ee codkuna xor loo yahay inay soo gudbistaan aragtidooda oo tara tusaala sida awgeed codkan waxaan rabaa in loo hiiliyo in lala shaqeeyo culimada dadaalaysa dagaalka dhamaatada ah ku haysa baarlamaanka shayaadil insi ee aan dhihi karo baraha bulshada waxa ku socda Soomaalida dagaal aan dhamaanaynin oo aad miisaankiisa u leh tusaalaha waxaan rabaa inaan uga baxo marka codkayga mar raba inuu sii baaho meesha waxaan rabaa marka in culimada lala shaqeeyo oo waalidiintu meel kasto adduunyada kaga nool yihiin ay la shaqeeyaan ubadka soo korahaya ee uu baarlamaankaasi uu baraha bulshada kula dagaalamay sida baraha bulshada waxa ku soo biiray oo kor u socda wax la yiraahdo TikTok Snapchat Facebook YouTube Twitter iyo kuwa fara badan oo hadda aan soo koobi karin oo dhamaantood shaqeynaya oo u shaqeynaya sidii aan positive ka ahayn sida awgeed waalidiintu iyo culimadu inta iskaashadaan sababtoo inta badan waalidiinta ama culimada waxa ku dhacaya dagaal marka aan dhaho culimada dagaal wuxuu ugu dhacaya markii uu ka hadlo nin sheekhihi dhibaatooyinka masiibooyinka uu leeyahay baraha bulshadu isla markiiba waxa lagu shaabadaynayaa dagaal baa ku dhacaya waa la dirirayaa waxa la soo sharsharayaa barnaamijyo fara badan culimadiina halkaas waxa lagu magacaabayaa shaabadaha lagu dhiifanayaa waa argagixis la dhahaya ma aha argagixiso dagaal caalami ah bay ku jiraan way dhici kartaa shakhsiga bini'aadamkii wuu khaldami karaa mar fikirka khaldanna wuu la iman karaa wuuna toobad keeni karaa qofka bini'aadamkii hadda ka hor waxaa jira qolyo sifo culimo ahaa oo barnaamijyo raadinaya hogaamina way jiraan laakiin waxaan dhihi karaa la dagaalanka xaqa markay culimadu sheegaan ay soo gudbiyaan inta badan waxa ku dhacaya dagaal waxana lagu shaabadeynaya waa argagixiso sida awgeed waxa la rabaa kaalintii waalidku inuu soo baxo codkeeyna wuxuu ugu badan yahay fadhiga ha laga kaco ya baraha bulshada waxa soo galay tusaale marka soo qaadanaya maalin dhaweeto ama shalayta iyo daraato iyo baraha bulshada waxa saa u meereysanahay waxa jirta shay kasta oo wanaaga oo isgaarsiin waxa jirta fara badan oo madax banaan
oo soo gudbisa barnaamijyo diin oo aad u fiican soo bandhiga su'aalo la yimaada shacabkii baraarujiya ku baraarujiya barnaamijka diiniga su'aalooyin kedis oo su'aaliya jawaab ah oo ay ku baraarujinayaan baraha bulshada ee madaxa bannaan ayaa waxa dhinaca kale haddana barbar socda ya barnaamijyo aan ka yaabay oo maanta hadda aan afkayga soo marin jirin qolo la imanaysa su'aalo kaafiye kala dheeri ah oo argagax ah oo xilligan xaadirka aad moodid baarlamaanka shayaadiinul insi ee ku wajahan programkan isgaarsiinta casriga ah ya oo loogu talagalay in lagu barabixiyo kii khayrka ahaa sida awgeed codkeygana waxaan leeyahay culimadu hadday kaalinteeda ka soo baxeen ay dadaalahayaan waxaa lagama maarmaana waalidkuna inuu kaalintiisa ka soo baxo sida awgeed aniga oo codkii waalidiinta ku hadlahaya waxaa ila quman in baraha bulshada maadaama marka global village wax la yiraahdo maanta waxa ka socda barta bulshada ama Facebook ama Twitter ama YouTube waynu la wada soconaa hadduu xumaan yahay waa in la iska qabtaa hadduu wanaag yahayna waa in la baraarujiyaa lagu jarab jalaa marka programmada diiniga ah haddaad aragtid barnaamijyada fanka ah iyo suugaanta ayaa like iyo maxaa la dhihi jiray subscribe iyo share ta loo badinaya laakiin ha loo badiyo barnaamijyada xaqa ah ee ummadda wax u tarahaya ama u siinaya barnaamij diini ah noqdo ama xog lagama maarmaan ummadda siinaya ha loo badiyo share-ta like-ta iyo subscribe-ka ha loo badiyo waxaan ka wadaa marka xilligan casriga intaaba in la yaqaano macnaheedu luqadda cusub ee isgaarsiinta ku soo kordhay baa ah kelmadaha hadda aan sheegahayo oo ah like share subscribe waa luqadda cusub ee isgaarsiinta casriga ee khatarta ah ee dhinaca kale haddii laga faa'iideysan way jirtaa culimo fara badan oo aan ka daawaday oo u isticmaalaysa isgaarsiinta marka waxaan ku baraarujinayaa kuwaasna culimadaasina sidoodii ha usii wadaan marka codkeeyani wuxuu yahay ha loo hiiliyo ubadka soo koraya waalidiintuna fadhiga ha iskaga kacaan codkeeyani waxaan raacsanayaa maadaama aan Soomaali oo dhan aan waalidiintooda la hadlahay gaar ahaan waxaan leeyahay Soomaalida ogaadeeya ee behen weyne gubeysiga ha ka dulqaado ya EBB fikirkeedu ma soconayso waxa soconaya bogga cad ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeya waxaba yaraatee gubeysiga madowga Itoobiya oo doorasho ah xaq iyo xalaal ah ka soconaysa ma jireen hatta shada jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeeya iyo Soomaalida ogaadeeya si gubeysiga iskaga qaadi lahayn gubeysiga madowga Itoobiya ha dhaco Soomaalida ogaadeeya ha xorowdo aamin isoo noqon wanaagsan waanigu Axmed Sucaad waas Maxamed wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh